nolosha macna dhaba u sameeyay oo tusaale u soo qaadan soo moogidina ninba ku caan baxay aqoonta oo isagoo hadda noo leeyahay ninkaas sidoo wuxuu bartay waa si cajiiba qof baa wax ku noqday dhaqaalaha iyo ganacsiga oo tusaale noola soma dadkaasi ma iska noqonun shaqa ka horeysay maalin maalmihiisa kamid uu dareemay inuu goortii uu shaqo bilaabi lahaa tahay maalintu go'aan ka qaatay baana shaqadiisii bilaabantay marka blueprints kan idin sheegaya waa saddexdaa waxa ugu horeeya hadda qabo shaqada hadday kugu jirto inaad ganacsiga maalin uu ku bilow waxyaabo ayna dilo Mustafa waxa kamid ah qof baad weydiin maxaad rabtaa markaasuu ku oranaya maalin uun baa guulaysan maalintaana lama yaqaan one day waa maalin uun waxay noqon kartaa maalinta dhibashadiisa ay maalin uga hadhay markaad berri dhimanaysa inaad maanta ganacsi bilowdo you die fahmiso waqti ma haysid markaas oo ma waqti ma haysid markaas oo ma marka eeg waxaad ogaataa walaalayaal midibka kaliya haysataa waa hadda midibka hadda qorshayso hadda talakeen hadda fikirkeen hadda isbeddelkeen hadda qawo waxyaaba qabanaysa marka waxa kamid ah laba shay baad ku soo ururayaan because kuma dhaweeyay meesha u socoto because kama tusinaya waxa kugu weyn adiga waxa ku fikiraysa uma dhawa أنا أقول شيء يجوز لم يصير أنا أقول لك أنا بعدين أبغى أنت ماشي توتيش بفصل عينه ولا لا لما يروح فكر يا مين يعني عينه تكابس نتكابس ما هذا كلامنا اليوم قرني ما لم يقابل صار يا عرفته أي ديك يدي عم بوشوي تعال لما أنا أقول إيه ملا كوحدة كذي يوم كتير روح كوحدة كوحدة كم كتير نصوم وين koox kale kuma jirno dunidan maanta way isbedeshay technology waa shaqeynaya ganacsi baa shaqeynaya waxa la gaarayaa meel aanan lagu fikirin in la gaaro mar hore sababta loo gaarayaan waxa weeyaan because dadku waxay barteen in la iskaashado in adigu aan aniga wax ku ahay aniguna aad adigu wax igu tahay hadaynu israacnana aynu gaarayno meel aad u fog teamwork makes a dream work war inaad koox la shaqaysato oo si kooxaysan oo team loo wada shaqeeyaa hamigan ku wada fikirayna dhabaynayaan oo xaqiiqo ka dhigayaan waxa jirta xigmad cajiib oo tiraahda hadii aad rabto inaad tagto meel fog hadaad rabto inaad tagto meel sare oo aad u sareysa taa iska tag cidi kaama xigto adiguna caqabada isku noqon waa adigii ilaahagu adu caqabada isku noqon wad gaari dadaal ba ka xiga shaqo laakiin hadii aad rabto inaad gaadho meel fog eega doo fiirso haddaad rabto inaad gaadho meel fog dad baa la raacaa dad baa khasaba inaad raacdo waayo meesha fog ee tagaysa dogaag baa jooga dooxiyaa jira waxa jira ma aragtay gurcud madow waxa jira wax kaste oo ku khalkhaliya cabsi gelin kara dad baa la raaca hadaad meel fog tagayso waxaan ku noolahay dunia aanad kaliga waxba noqon karin maanta albaab walbood hor istaagto furihiisa qof baa haya waa khasab inaad qofka barato si loola shaqeysto teamwork makes a dream work iga dabada teamwork si fiican u dha teamwork waa inaan baranaa haddaad rabto inaad natiijo macnale noloshan ka samayso waxa khasaba inaan koox baranno si loola shaqeysto inaad adigu noqon karto a good team player qof koox ka mid noqon karo firfircoon oo wax soo kordhiya oo la hogaamiyo iyo sidoo kale qof team hogaamin kara labadaba inaad waxna hogaamin karto laguna hogaamin karo dadkana aad la shaqaysan karto waxyaabo caqabadaha kuwa successkeena gaar ahaan ganacsiga inaan guul ka gaadhno waxa kamid ah inaynaan isfahansaneyn oo aynaan wali aad u baran sida koox ahaan loo shaqeeyo ganacsi baa la bilaabi wada aragteen ganacsi baa la bilaabi ama initiative iyo halabuur cusub baa la bilaabi dhowr qof baa bilaabiyo niyad wanaagsan oo isku kalsoon oo marka hore isjecel oo dadaalaya oo arkaya mustaqbal qurux badan 6 bilood kadib dhowr bilood kadib hebel baa heblaayo arkaya dhankeyga foorsha xun leh heblaayo dhinacay ku xuntahay arkaysa marka waa la iska daba hadlay wax leeyahay heblaayo way nagu mushkilad badatay waxaan ka yeelnaa taa inaga saaro waa la saaray heblaayadii la saaray waxay la tagtay value-geegii oo dhan company-gii ama initiative-kii la bilaabay uu dhutiyaya because tiirarkii lagu bilaabay mid ka mid ah baxay trust-kii iyo is-aaminaadii baa luntay ruuxdii tiimka ama ruuxdii kooxeed ee lagu wada shaqaynayay ayaa dhimatay markaa lama gaadhayo meeshii fogeyd meel yaroo gaaban baa la gaadhaya diyaaraddaadu waxay noqonaysaa geedkaama gaadho geed markay kacdaba geed baa qabsanaya waxa khasaba inaan baranno teamwork
waxa khasaba inaad barato qofka kale sida loola shaqaysto siyaabaha ugu fiican ee ugu fudud ee u baran karto sida dadka loola shaqaystana waxa kamida inaad qof kasta barato wuxuu ku wanaagsan yahay sida looga bartay looga faa'iideysto adiguna waxaad ku wanaagsan tahay sida dadka loo baray looga faa'iideeyo tusaale Mustafa wuxuu ku fiican yahay jira wuxuu ku fiican yahay aan baranaya waxaan oranayaa Mustafa I trust your capacity waxaan aaminsanahay karaankaaga waxaan rabaa karaankaaga inaad wax igula qabsato anigu waxaan miiska soo saaraya waxaan karaankayga iyo awoodayda adiguna taadaasa waan isku darsanaynaa waan isku dhuuqaynaa meel fog baan gaadhaynaa marka blueprint number 1 muxuu ahaa just do it now waxaad ku fikiraysaa waxaad ku dadaalayso iyo riyooyinka kugu jiray saad yar fikiraysaa wax kasto niyadaada ku jira way iska ahaanayaan niyad ilaa shaqadooda bilowdo shaqadoodana xilliga ugu quruxda badan leed bilaabaysa waa hadda number 2 waxa weey marka shaqada bilowdo inaad eegeegato waxa la yiraahdaa Soomaalidu ma maayay waa cajiib inaan dad taariikh lanahay oo soo jiray oo falsafad nololeed leh waxaad ku garanaysaa waa rafaadkiina soo maray wax badan buu inoo loosin karaa waa sax it's okay laakiin waxaad ogaanaysaa inaan ummadahan dad qadiima oo taariikh lanahay cilmi kasta iyo wax kasta oo la hadal qaado waxa jirta maahmaah ama xikmad Soomaaliyeed oo laga oran karo because dadkeenii hore waxa way soo mareen waxna way ka yiraahdeen sax waxa la yiraahdaa xitaa hadaad wax xun ka shaqaynayso fandaaladiisii baa la qaataa mar raba inaan eriga ilaahay hadaad waxa ka shaqaynayso fandaaladiisii baa la qaataa soo saamayn maamaadu hadaad mar raba inaan eriga hadaad waxa rabtay inaad ka shaqayso fandaaladiisii baa la qaataa waxa loo jeedaa wax kasta oo qabanayso toolskiisa la doontaa dadkiisa la bartaa xirfadihiisa la bartaa alaabta iyo agabka uu u baahan yahay waxaas baa loo qaataa hadaad rabto any success inaad ka gaadho dunida ganacsiga dunida waxbarashada iyo dunida halabuurka iyo entrepreneurshipka waxaad u baahan tahay inaad barato sida dad loola shaqaysto teamwork mar labaad baan ku celinayaa teamwork makes a dream work Mustafa ma gaadheen hadda successeska iyo checks ka halka uu naga tusay iyo tripska waa dunida ku maray ma gaadheen hadaan koox lahayn keligii uu gaadhi kari lahaa meel sare laakiin meesha sida nu fogaaduna dad haysan ma gaadheen adiguna si aad u gaadho meel fog waxa khasaba inaad dad raacdo marka dadka soo loo raaco baro hadaynu daayarnaa aan sii barano dhaqanka dad la shaqaysiga dhaqanka koox ahaan wax loo qabsado you can be something but you can be something more markay dad kula joogaan together markaan wada jirno aynu koox nahay xitaa waxa jira qisooyinkii markaan koreynay leenooga warrami jiray sama taqaanaan marka ul kaliya lagu dhiibaya marka uu shakaliye la jabiyo iska fududaa sama laakiin hadii 6 ulood lagu dhiibo saal isku ka qabto ma jabin kartid xitaa caqabadaha idin ka hor imanaya markaad wax bilowdaan koox ahaan idin ma jabin karaan waayo dhubuciina weyn kaliya laakiin hadii meelaha ka helaan way ku jabin karaan marka blueprint number 2 waxa weeyaan inaad koox sida loola shaqeeyo barato labada ma iga qortay labada ma haysaa wadadku shaaxu baahan haadi baa xitaa si naaqis haadi baa xitaa waxa la moodaa in meel fog ka soo baxayso laga soo dhaxlaagayo ha si fiican u dhe okay qodobka saddexaad blueprint number 3 ogow marka dantaada raacday eriga anigoo in badan la ku celcelinayaad maqashaan waana ku celinayaano idin hor jooga marka dantaada raacdo ee waxa ku muhiimka aad qabato ee waxyaabaha adiga noloshaada macnaha weyn u leh aad daba raacdeed ku ekaateed iyaga u goodo dad badan baad ka xanaajinaysaa dad badan oo aad laahayd kuray ama gambayar ama qof iska caadi aad laahayd ayaa ka xanaaqay statuskaaga dad badan baa ka xanaaqay shanqadhaad samaynayso because markaas waa markay joogsatay inaad qof caadi sidoo u dhaqmay u dhaqanto sida loo fikiray si ka duwan baa u fikiraysaa xilliga la seexanay xilli ka duwan waxa laga sheekeynay conversation ka duwan su'aalaha la isweydiiyay kuwa ka duwan waxaad keenaysaa waxyaabo narrative cusub baad keenaysaa aragti cusub baad miiska soo saaraysaa dadkuna ma jecla waxa caadiyan marka sociology la baranayo ama cilmiga bulshada sida uu nooshahay waxa marka la baranayo
waxa la yiraahdaa bulshadu waa kurar siman mana jecla kur kasto ka dheeraada ka dadkeenu u fiirsada qofka firfircoon ee waxyaabo dadku aanay la qabsan ka hadla ama ka sheekay waxa yiraahdaan far dheeraad uu noqdo waa laga qabtaa dadka far dheeraada marka dantaada adigu raacdo marka dantaada raacday waxa ku muhiimka aad ku ekaato ee waxa u noolaateed waxa u dhimateed waxa u go'do ee tamartaada iyo fikirkaaga iyo dadaalkaaga waxa isku geyso you're making noise shanqad baad samaynaysaa shanqadaana dadku ma dul qaadanayaan far dheeraad noqonaysaa dadkoo dhan baa raba inay ku jaraan wax kasto aanad filayn baa kugu dhacaya cid kasta slide supportive bay ku noqono way ku taageeraysaa way ku soo dhaweynaysaa heblaayo idinkii saaxiib ah hebel idinkii jaar ah odayga wadigii berigii ay adeerka saaxiib ahaayeen qof kasta oo isleedahay he is going to be open to you ayaa albaabada ka xidhanaya nidaas aad noqotay far dheeraada marka shaqadaada bilowdo markaad soo fikirteed shaqadii bilowdeed hadda dadaalkii bilowdo eed koox raadsato aad la shaqayso then waxaad bilaabaysaa hadda qodobkaas saddexaad baad soo gaaraysaa challenge-tii baa bilaabmay waa lagu arkaya waa la istaabanaya markii hore intan unbu madaxaagu gaadhsiisnaa intan aad arkaysay laakiin waxaad rabtaa intan in ka sarraysa inaad aragto marka waxaad fuulaysaa saqafka si aad meel ka fog u aragto saqafka markaad fuushana dadkii hoosta jooga adig ku soo arkaya warkaas muxuu ahaana dul jooga naga soo fadhiisiya caqabadii baa bilaabmaya challenge markay halkaa marayso you don't want to give up ma rabtid inaad isdhiibto halkaan ericaan oo taqaanaan baa ku jiro la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa ha isdhiibin dee soo maahin ereyga caanka waxaa laga soo waariday halkaa war haddaad rabto inaad wax weyn noqoto waxa kaa xiga wax weyn haddaad rabto natiijo weyn inaad ka gaadho wuxuu doono ha noqday qayb noloshaada ka mid a waa inaad u weynaataa sida waxaad rabtaa u weyn shaqadaad waa inay weynaataa si natiijadaad u weyn tahay sax taasna caqabadaha kaa xiga caqabadaha ha isdhiibin nin baa beri wuxuu yidhi anigu waxaan ahay sida siidhkoo kale iniintoo kale midhaha ininyahoo kaleaan ahay haddii xitaa lay aasoo lay qariyo buu yidhi waan soo baxaa iniintu maxay samaysaa marka ciidda hoosteeda la geliyo way soo baxdaa marka wuxuu leeyahay anigu ma joogsanayo I'm not stopping isma dhiibayo dee yaan isku dhiibaa de naftaydaan isku dhiibi lahaa waan ka diiday naftayda sow adigana isma kaa dhiibayo isma dhiibayo dheh cod fiican ku dheh isma dhiibayo okay waxaad ogaataa ila ogowtaa markaad adigu is aaminto eed adigu istiraaho waxbaad qabsan kartaa keligaa unbaa is aaminay cid kastoo kale laakiin way kaa shaksan tahay because dadku caadiyan waxay u badan yihiin dad nafoogaan ku kalsoonayn oo some way somehow duruufaha haysta ay ka qariyeen waxay qabsan karaan iyo waxay noqon karaan sax sidaasay ka rajaynayaan qof kasta oo bulshada ka mid a saad arki maysid marka tusaale yar baan idiin soo qaadanaya mar walba waan u sheegaa dadkaan la hadlaya lakiin idinkana waan idiin sheegaya anoo yar baan ku fikiray inaan speaker weyn oo caana noqdo laakiin dee berigaa waxaan ka fikirayay inaad dadka hor hadasho gole ka hadasho da' baa ku xidhnay xitaa waxaa la odhanayay war kan yarkan maxaa wareeriya buuq badana waa bal naga fadhiisaa adeer dad waaweyn baa fadhiya meesha da' baa ku xidhnay waa inaad nin weyn ama gabadh weyn ahaataa si aad dad uga hor hadasho marka munaasabad meel lagu qabanayay baan intaan waraaqi yar qortay I was so inspired anugu diyaar baan ahaa niyaddaan ka diyaar ahaa waan dadaalay waxaan islahaa waad codkaagu wuxuu bedeli karaa dad badan maskaxdooda you can bring change isbeddel baad ku keeni kartaa using your power voice saasaan aaminsanaa I was so inspired anugu baan markaa is aaminay laakiin dee is aaminideeda laylama qaadan dadku ilama qaadan ka meel hotel aan imid oo xaflad laga sameeyay bowrama weeyaan ka airport iyo waxba laga sheekeynaya community gathering weeyaan bulshaa isku timid ka hotelkii baa soo hor istaagay waa anigoo yar oo cawlan oo aad u caataa marka hotelkii baa laga diiday inaan galo because waad ka garanaysaan hoteelada waaweyn dee ubadka maa loo sii daaya way ku ciyaarayaan way khribayaan balaysa layma sii dayn ka meeshii yarid baan iska hor joogaa halkii yarid baan iska hor fadhiyaa nin qaraabaan yaran oo adeer igu beegan baa meeshii soo maray oo hotelka sii galaya ninkii baa kudhaada gacantaas ka qabsaday marka hadda meeshaan baan maxaa ku keenay halkan oo booliskii buu idhaafiyo sidii baan ku galay meesha marka hoolkii barnaamijku ka dhacaysa kan oo kale ayaan hor istaagay waxaan raadsanayaa ninkii oon gaadayaa ninkii barnaamijka daadihinayay ayaan gaadayaa waa nin meel u caddahayn bay laga mido soo gadaysaan awdkii aan markaa aad baan midaa ninkii baan soo qabtay gacanta
marka anigu waan dheer oo u socdaa oo barnaamijkii ku mashquulsan waxba isku xidhxidhaya waraaqo wata ima arkay inuu wax yar caataan inteeda marka ninkii baa gacanta qabtay waan daba socday marka ima dareemayo shaarkan xaysanaya ima dareemayo mar dambe ii soo jeestay giroor maxaad rabtaa adeer markaas uu adeer xafladda aad wadaan rabaa inaan dadka wax u sheego waxaan u sheegayaana waa wax fiican waad ka heli doontaan waraaq yar baan la soo baxay waxay ugu diyaarsanaayeen marka adeer hal midhidhisi dadka aan la hadlay wax fiican baan u sheegaya waa adiga ay jeclaan doonaba markaas intuu qoslay uu adeer dad waaweyn baa fadhiya meesha dad waaweyn baa fadhiya way iga dhaqaaqay markuu iga dhaqaaqay markaa anuu nin yaroo dhalinyaro oo fikiray un baan ahay oo dee waxbaad qaban kartaa isla aad bay niyad jabisay arrintaas aad iyo aad bay niyad jabisay waad garanaysaa dareenkay leedahay adigoo isa soo diyaariyey oo meel soo istaago wax baan qabsan karaa yidhi oo lagu yidhi ma adiga ka bannay meesha adeeray aduu ka bannay adeer meesha u bannay dan gurigaan tegey waan ooyey waan xasuustaa maalintaa waxaan ka ooyey dee ku yaroo da'yaroo taag daranoo bulshadiisu aanay waxaan garanayno waxa uu doonayana da'i ku xidhantahay waxa ugu daranoo wax awooddaada ka baxsan marka shuruud lagaaga dhigo waa inaad 40 jir noqotaa si aad u gasho jaamacaddan marka lagu dhaho eed 20 tahay dee maxaad ka qaban kartaa da'da oo kama qaban kartid maalintaa waan ooyey aroornimadii markaan toosay aroornimadii ku xigtay markaan toosay ayaa qolkayga yareen deganaa waxbaa igu qorqornaa gidaarka waayo back in psychology waxaa jirta waxaa la yidhahdaa 20 midhidh ee ugu horreeya nolosha markaad soo toosto maskaxdaadu way furan tahay waa open wax alla wax kastood u sheegtana way aqbalaysaa waa 20 midhidh ee ugu horreeya noloshaada indhaha kala qaado marka qolkayga waxaa ku qorqornaa gidaarkiisa waxaa ku qorqornaa waxyaabo dhiirigelina haddii kufidaadu weyn tahay kiciddaada ka weynaan karta wax kastoo maskaxdaada aad gelaysaa waa suuragal waxayna suuragal ahayn markaad aamintay inaanay suuragal ahayn haddaad ismoodayso doqon waa runtaa haddaad ismoodayso fariid iyaduna waa runtaa sidaad aamintuun baa saxa waxyaabahaasaa igu qorqoran meesha wixii baan akhriyey markaasaan waxoogaa dhiirigelina helay maalintii baan shaqo bilaabay markaa inaan ka shaqeeyo waxaan oon dhabeeyo inay dhab noqoto waxa ninkaas ii diidanaa day in day out waxaasaan ka shaqeeyey dadka ugu caansan ee adduunyada la yaqaanaan wax ka bartay ee shaqadan industrigan aan ku hamiyey ku jira buugta ugu xiisaha badan le laga qoray baan akhriyey courses baan qaatay dadka bulshadeena dhexdeeda ee codkarka ee dadka la hadlay waxaan yaqaanaan hoos fadhiistay 5 years baan waday day in day out cabdiqaadir baan halkaa ka arkaya oo kooxdeedii ka mid ahaa day in day out baan ka soo shaqeeyey 5 sano iyo dheeraad kadib waxa bilaabmay xilligii la arki lahaa markaa in siidkii la aasay siidka la aasay uu soo baxay Soomaa adoo asleedahay midhahaas khashin bay hayaan waa iska aasto waa adigi ciid hoosteeda ku hubsaday waa asleedahay laakiin waxaad ilowsan tahay midhihii roob baa ku daay oo way soo baxeen oo geed bay noqdeen you don't know that adu ma ogid waxay kula hayeen midho la daadshay laakiin midhahaas iyagu way soo baxayeen midho ay hayeen ciid hoosteedana way ku naaxaan oo ku soo baxaan 5 years later 5 sano iyo ka badan kadib waxa bilaabantay inaan markaa public noqdo TVska laga sii daayay barnaamijyadayda meelaha youth leadership centers iyo jaamacadaha iyo dugsiyada ka hadla I'm all over the place waan wareegaya markaa waxa dhacday jaamacadda carabta Arab League ku leedahay barnaamij dhalinyaro sameynay qaahira la igu martaqaado waxa la yidhi ninkaas dhalinyarada hawshiisu waa hawl aan la qarin karin u yeedho waa nin dhalinyaro oo aad u muuqday waa la yeedhay qaahiraan tagay markaa jaamacadda carabta kulan ay leedahay ka qayb qaatay markaan dhameeyay kulankii bulshadii Soomaaliyeed meesha joogta tir Allah war ninkii baasaaba yimid soo qabta ma bixi kartid baadoon dadka la hadal waay aan waxaas waxay jaamacadda al-Azhar qaacweyn oo ku dhex taala la balamiyay dhowr kun oo qof oo Soomaaliyeed oo Soomaalida qaahiro deganeed iyo agaarkiga isku yimid halkaasaan kala hadlayaa qaad ka garanaysaa de waan u tagay wax kale ma jiraan waa markaagii baan ku yidhi markaa waa markiini waxaan ku yidhi waa markiini markaan dhameeyey barnaamijka nin weyn oo dheer oo god leh xoog weyn baa soo baxay marka barnaamijyada la dhameeyo dadku way ku imanayaan way ku salaamayaan way kugu faraxsan yihiin inay ku arkaan way kugu hambalyeynayaan waxay kuu sheegayaan inaad shaqo fiican oo wanaagsan wado sax anaga iyo sidaa waanan la qabsaday arrintaas waa arrin caadi ah nin weyn baa yimiday dadkii badnaa ee ag joogay garabku soo qabtay ma dareemayo because 200 qof baa hareeraha iga joogta ninkii garab ku yahay ilaa intay dadkii dhamaanayeen
markay dadkii ka kala yaraadeen baan arkay nin weyn oo garabka ayaa markaasaan ku dhahay xaaj markaasuu yidhi miyaad garanaysaa u fiirsada hadda sheekada halkan qisada dhan waxaan u wadabay intaasay ku jirtaa wuxuu yidhi miyaad garanaysaa markaasaan ku yidhi niyow mayana markaasuu yidhi bal hadda caadi eeg miyaad garanaysaa may wallahi kuma garanayo markaasuu yidhi 5 sano iyo in ka badan ka hor inagoo boor ma joognaa ayaa maalin hoteelka hebel anoo barnaamij sidaa ay saa wada ayaa dadoo yar oo caata oo cawlan oo diif badan ka muuqatay timiday waxaad igu tiri aan hadlo dadka aan la hadlo waxbaan fariin fiican baan ayaan dadka u sheegaya markaasaan dad waaweyn oo odayaalaha fadhiyo waxaan kugu yidhi dad waaweyn baa fadhiya adeeraya naga daa dad waaweyn baa meesha fadhiya maanta 5 sano iyo in ka badan kadib markaan maqlay inaad qaahiro halkan ka hadlayso 2 saacadood baan gaadhi u soo watay si aan kuu dhagaysto oo uga soo qayb galo muxaadaradaada it shocked me marka aad bay shakaraysay thank you aad bay ii shakaraysay waa qalbigayga dareen gaar ah ku reebtay marka maalmaha waxaan joogayaa qaahiro bil apartment kaligeed deganahay waa adigu naftaada isku qabo cuntadeeda ana karsado you know the typical abroad living gurigaan ku soo noqday kaligay xilli dambe habeenkaan waan ooyay laakiin lilmada habeenkaan ooyay ma ahayn tii habeen maalintii boorama anigoo taag daran oo daciifo ku yaro dhalinyaraan ooyay maalintaa hore waxaan ooyay lilma murugaa because ninkaas ma aaminsanayn inaan wax qabsan karo maalintan dambena waxaan ooyay lilma farxada because waxaan aaminay inaan wax noqon karo wixii baanan dhab ahaan u arkay qof aamini waayayna waxa khasab ku noqotay inuu dib aamino so get ready marka u diyaar galo adigu inaan marka hore laga shaqeeyo CV-gaaga dustbinka la dhigayo albaab laga xidhayo dadku isku ka sheegayaan mararka qaar lagu sharaysanayo xitaa waalidkaagu mararka qaar uu kula fahmay waxaad ka fikirayso it's okay hold on si hay ciyaarta waxaad naftaada u sheegtaa inaan ciyaartu dhammaan ilaa aad guulaysanayso adigu it's not over until I win inta ay geero dabadhe erigaadha fadlan it's not over it's not over until I win waa run ciyaartu maaha inay dhammaato ilaa aad adigu guulaysato haddii maalintii sidaa ugu yidhaan aamini lahaa maanta halkan idinkuma yimaadeen haddii maalintaas sidaa ugu yidhaan aamini lahaa haddii maalintaas shakigu iga qabay uu maskaxdayda degi lahaa kumaan riyoodeen xitaa inaan meel maro waxaan idiin sheegayaa waxaa jirta maqaale cajiib oo tiraa markabku inta uu biyaha badda dul marayo ayuunbuu socon karaa haddii biyaha uu dul maraya ay mar kaliya gudihiisa galaan markabkaasi waxaan u bixinay magac la yidhaaho wuu qarqoobay wuu ku daayay it's no more shikiga iyo cabsida iyo aaminad la'aanta dadku kugu qabaan iyo waxyaabo ay kugu sheegayaan markaad dadaalayso niyadaada hadday galaan sida markabkaad hoosta maraysaa hadday niyadaada gali waayaan oo is aaminto oo dadaasho oo dadku markay isdhiibeen aad tiraa ayaan isku dhiibaa you're going to win adaa dadka ka sarraynaya adigaa dib lagugu soo noqonaya weliba waxa kugu soo noqonaya kuwii ku aamini waaye markaad bilaabaysid kuwii kuu saxabin waaye u fiirso kuwii markaad buurta fuulaysay gacanta ku soo qaban waaye ayaa ku sheegaraynaya ku salaamaya markaad buurta dusheeda fuusho marka aamin inay dadaalkaagu midho dhalayo aamin inaad wax noqon karto hana aaminin qof kastoo naftiisa ka shakisan waayo qof naftiisa ka shakisan ee adiga kumaba aamini karo midna ila garo qof kastoo isku kalsoon oo dadaalayo oo is aaminsan waxa ka xanaaqa qof kastoo is aaminsanayn oo dadaalayo marka ha aaminin dadkoo dhan adigaa saxa adigu is aamin karaankaaga aamin naftaada aamin markaad is aamintay dadaasho ilaahaaga ku jecel oo kula jiraya shuruud kaliyaana ku xidhan wax kastoo adduunyada yaala ballanqaadkaana ilaahayna abuurtay baa sameeyey ballanqaadkaasi waxa weeyaan wa an laysa lil-insaani ilaa maa sacaa wa inna sacyahu sawfa yura wax kastood u dhaqaaqdo ood u socoto ood u dadaasho ood dhinaciisa u jahaysato khasab waad arkaysaa waa ballanqaad ilaahay sameeyey ilaahay kuma xidhin inaad gaal tahay inaad muslim tahay inaad gabar tahay inaad nin tahay inaad weyn tahay inaad yar tahay kuma xidhin waxaa insaan buu isticmaalay ilaahay qof ibni aadam qof kasta oo nool oo ibni aadama wuxuu u dadaalo helayaa waxa uu dadaalayna dhabtii uu arkaya waa ballanqaad ilaahay
markaad bixiso adu waxa laga rabo when you do your part markaad qaybtaada qabato eed saxan weydo eed si xagrasho la'aan u dadaasho eed waxaad rabto dhinaciisa ugu dhaqaaqdo eed boqolkiiba boqol bixiso price iyo qiimaha waxa kaaga xidhan you're going to win waad guulaysanaysaa waad gaaraysaa waad helaysaa waad noqonaysaa waana ballan aanan anigu sameeyay waa ballan Ilaahay ku sameeyay believing you markaa aamin naftaada hana isdiibin markaa مشاكلات بدن يا عقبات بدن بادركي هيسديبين إيجا دوا ديس ما ديبيو عادو ديس ما ديبيو كعليس ما ديبيو waxaan rabaa inaan ku celiyo saddexdii qodob aan ka sheekaysanay saddexda qodobkii koobaad waxa ay ahayd inaad hadda shaqada bilowdo hadda dadaalka bilowdo hadda fikirka bilowdo hadda joojinta caadooyinka hoos ku haya bilowdo hadda bilaabida caadooyinka wanaagsan ee hore ku wadayaad bilowdo time is now waa markaagii dhig waa markaygii dhig wali ma maqlayo waa markaygii wali ma maqlayo waa markaygii number 1 rule number 1 number 2 inaad koox raacdo oo dad la shaqaysato oo baratay skillka iyo xirfadda dad la shaqaysiga iyo dad la dhaqanka iyo dad wax la qabsiga oo ruux team aad barato sida aad qayb uga noqon karto team work iga dabadhe team work de okay ta saddexaad waxa weeyaan mashaakilaad badan iyo caqabado badan baa jire inaanad isdiibin isma dhiibayade okay si aan idinka tago waxaan rabaa saddex eray inaan isku sheegno waxaad tiraahdaa isma dhiibayo maxaan isku dhiibayn sabab markaan ku idhaahana waa markaygii dhe intaasaan kaaga tegayaa isma dhiibayo sabab isma dhiibayo sabab waa markaagii cidna kaama xigta guusha Mustafa meeshuu gaaray waad gaari kartaa waxa ka xiga dadaal iyo soo jeed sacabkaaga ma horeeyo I love you very much aad iyo aad baa mahadsantihiin I love you